dalag laga doonan jiray gobolada koonfurta Soomaaliya oo masaafo ahaan kumanaan kun oo kiiloomitir u jirta goobta aan warbixintan idinka soo dirayo qaadan jirtayna safar guura habeenimo iyo kalahaad subaxnimo ay ganacsatadu u gali jirtay si ay khudaarta noocyadeeda kala duwan u keenaan deegaankan iyo deegaano kale oo ku teedsan beerta Geeldoro oo ku taala magaalada Ceelbu ayaa gabi ahaanba meesha ka saartay dalagga kumanaanka kun ee kiiloomitir loo gali jiray keenistiisa isbeddelka ganacsi ee beertani keentay ayaa gabi ahaanba kafeeyay deegaanada gobolka Sanaaga iyo gobollo kale oo dalagga beertani macmiil u ah ficilka bilowday beerista hal geed ayaa maanta maraya boqolaal geed oo ay ku tiirsan yihiin dad iyo deegaano badan gudoomiyaha gobolka Sanaag Siciid Badmaax iyo mas'uuliyiinta beerta gacanta ku haya ayaa ka warbixinaya faa'iidada deegaanada ay u leedahay beerta iyo garab istaaga ay beertan u baahan tahay beerta waxa ka baxa dalag badan baa ka baxa anigu xagga dalagga markaan ka hadlo waxa ka baxa geedkan hoos taaganahay oo la yiraahdo saytuun oo deediisu waxa weeye 2 sano iyo badh buu hadda jiray midhihiina waa ka wada waa talacunaya darkiiseen midhihii waa wada 2 sano iyo badh buu jiray waxa ka baxa qamandi oo agteena hadda halka agteena waa tan laga tumay hadda laga saaray qamandida baa ka baxda waxa ka baxda galeydii waxa ka baxday hadhuurkii oo sanadkan ka baxay oo isna la gafaalay waxa ka baxda maxaan ku raad babaygi waxa adigu waxa weeye waxa ka baxa geedka la yiraahdo tufaaxa oo aan mar gobolkeenu ku yar yahay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa tacabka wanaagsan oo ay sameeyeen iskaashatada Geeldoro oo runtii ah mid farxad geliyay mas'uuliyiinteeda gobolka iyo cid kasta oo maartay soo booqata beertan oo indhaha iyagu aanu maartay qabanayaan wax badan oo aanan in badan dalka iyo deegaanka ku arag waxyaalaha ugu muhiimsan hadda aanu la maartay ashqaraarsanahay ama aanu aad iyo aad ugu faraxsanahay waa waxyaalaha halkan ka soo go'ay oo dadku ay hadda isticmaalayaan oo ay ugu mudan tahay geedka la yiraahdo qabandiga runtii geedkaas oo geed dalkeena qariib ku ah ama aan laga isticmaalin ama aan laba ogeyn inuu maartay dalkeena ka bixi karo waxa kamid ah tufaaxa oo kale waxa kamid ah dhirtan hadda aan harsanayno iyaguna hadda kullu wada mireeyay oo runtii mirihii la guranayo waxa kamid ah galeydii iyo haruurkii iyo dhirtii maartay loo baahnaa ee bulshadu aad u anfacaysay waxyaalahaas oo aanan hadda soo koobi karin ayay beertani caan ku noqotay kagana duwan tahay beeraha kale oo maartay dalka ku yaala runtii waxay u baahan tahay in la kobciyo korna loo qaado maartay waxyaalaha ka soo go'aya si ay u miro dhalaan meel fogna ay u gaaraan iyo meelaha maartay looga baahan yahay runtii gobolka in badan oo kamid ah hadda beertani way gaarsiisay dalagga ka soo go'a hadday tahay degmadan Xingalool Badhan iyo maaragtay ilaa iyo Boosaasoba midhaheedu waa gaareen runtii Ilaahay mahadiis weeye waa wax aad loogu farxo annaga ka gobol ahaan runtii waxaan aad ugu mahadcelinaynaa wasaaradda oo runtii booqasho badan iyo kulan badan ku sameysay hadeerna u maqan oo runtii wasiirku isugu lugihiisa uu noogu yimi ayaama kana uu nala joogay aadna uu indheeyay ballanqaadna uu sameeyay insha Allah ballanqaadkiina waa ka rajaynaynaa waxa kale oo soo booqday agaasimaha guud ee wasaaradda oo isaguna cagihiisa ku yimi waxaan insha Allah isagana u mahadcelinaynaa Islamic Relief hay'adaasina si gaar ah baan ugu mahadcelinaynaa maadaama ay tahay hay'adda kaliya ee soo booqatay shaqana ka qabatay kala duwan beeratan waxaan rajaynaynaa ama gobolkaba ka hayso maaragtay shaqooyin aad iyo aad noo farxad gelinaya ama horumarka maaragtay wax ka taraya insha Allah waxaan rajaynaynaa beertu inay horumarto meel fiican ay gaadho ayadoo si guud beeruhu ay ugu baahan yihiin gobolku haddana beertani waxay kaga duwan tahay waxyaalaha ay soo saarayso ayaa ah waxyaalo si gaar ah loogu baahan yahay ama ummaddu inay lagu dhiirigeliyo u baahan
waxaa xusid mudan in gobolka Sanaag uu ka mid yahay gobolada hodanka ku ah dalag beerista walow aanay dadka deegaanadani ka faa'iideysan. mulkiilayaasha beertan oo ah qoyska Allah u naxariistay wasiir Cabdullaahi Qablan oo ahaa wasiirkii ugu waxqabadka badnaa deegaanadan ayaa guul ka jooga tacabkii ay geliyeen deegaankooda.